dhammaan waxaan farayaa dhalinyarada ila midka inay muuqaalkaygan aanay dhaafin oo ii fidiyaan waxay awoodaan igu soo taraan haddayna awoodinna muuqaalkayga ii sii fidiyaan oo ii gaarsiiyaan dadka kale. nabarka wixii kaga dhacay misigta dhinaca misigta dhiilkaygii baa dhammaaday baa layidhi. markii dhiilkaasi dhammaadayna meeshaasi biraa la geliyey, birihii baana imika igu jiro hindiya laigu soo geliyey. birahaasina waxay doonayaan imika in laga saaro haddii awood loo helayo lacag qarash aan ku tago hindiya. imikana ma haysto waxaan ku tago qarash hindiya oo lagaga soo saaro birahaas. waxaan leenahay baaq dheer, waxaan leenahay dadkana dhagaysan doona waxaad u heli kartaana ku soo taakuleeya, kiina ugu yiri ha noqdo ka sheer gareeya muuqaalkiisa, codkiisaasina meel dheer gaarsiiya. arrintaasina waa arrin aanu markhaati ka nahay, 9 sanana aan goobjoog la nahay, aan la noolnahay, jaar aan la nahay, xaaladiisa aan la soconno. kaasi xanuunka misigta ka soo gaadhay iyo jabniinka waxa u dheer inuu inakii fikiray stress uu qaaday kadibna uu isagii maxaan ku dhahdaa xanuuno kale ay la soo dariyeen oo iminka inakan wuxuu qaataa dawooyinka lagu seexiyo qaataa, dawooyinka stresska loo qaato qaataa. xanuunkani wuxuu saameeyay maskaxdiisana saameyn buu ku yeeshay. Mahad Maxamed Cige 2015 ayuu ku jabay masaajidka dacwey magaalada Boorama oo uu ka mid ahaa jamaca ku tukada salaadaha. 9 sano ayuu saaxiib la noqday sariirta maadaama uu misigta ka jabay. dhiilkii ay dhakhtaradu sheegeen inuu dhammaaday, biro ayaana la geliyey oo dhakhtarro kala duwan ayaa la geeyey. haddana waxaa la rabaa in laga saaro biraha, balse ma hayo dhaqaalihii ku bixi lahaa. waa danyar qoyskoodu, aabihiina dhowr xanuun ayuu qabaa, mana haystaan garab aan ahayn Ilaahay iyo walaalaha hadba waxay awoodaan ku gargaara ee jaarkiisa. waxaan ku booqday gurigooda, walaalaha muxsiniinta ayuuna ka codsanayaa inay soo garab istaagaan maadaama uu nolosha rajo ka leeyahay. qof kasta oo muuqaalkani daawada codsigan ayuu u diray isaga iyo hooyadii. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan Mahad Maxamed Cige oo ku nool magaalada Boorama, gaar ahaan xaafadaha Fardaha, kuna jabay masaajidka dacwa sanadku markuu ah 2015. halkaasina ay iga soo gaadhay cillad dhinaca misigta markaasi lay qaaday dhakhtarka Alxaya, kuwaasina ay biray geliyeen. markii dambena la yidhi waxba lagama qaban karo, lay qaadayna Itoobiya. markii dambena kuwii Itoobiya birihii iga soo saareen, kuwii Itoobiyana ay yidhaahdeen waxba halkan lagama qaban karo, ha loo qaado dalka dibadiisa oo dalka Hindiya. markii dalka Hindiya lay qaadayna kuwii Hindiya ay soo geliyeen biro, ay yidhaahdeen birahaasi jirkiisa koraya inta 4 sano ka bacdi laga yaabaa in dib loo soo celiyo. 4tii sanana ay dhamaatay, aan waayay lacag aan ku tago mar labaad ku noqdo. dadka walaalaha muxsiniintu bay caawin jiray. aabahayna cillad baa soo gaadhay dhinaca faalishka, waxna ima qaban karo, cid kale waxay qabataa ma jirto dadka jaarkayga mooyaane iyo dadka kale walaalaha muxsiniinta mooyaane. imikana lugtaydii saasay u kala gaabatay adarkasiin. weli rajaan ka qabaa, dee wiil dhalinyaraan iska ahay, inaan caafimaadaan doonaya. dadka walaalaha muxsiniinta waxaan ka codsanayaa in ay caawiyaan ee dalka dibadiisa iyo gudihiisaba jooga. ciddii waxay tari karaysaa, lugtaydii rajaan ka qabaa, weli wiil dhalinyaraan iska ahay, ciddii waxay qaban karta waxaan ka codsanayaa walaalaha muxsiniinta inay waxay qabtaan oy isoo caawiyaan. ciddii waxay ku tari karaysaa waxay qaban karaysaa. cid kale oo ku noolahayna ma jirto dadka magaalada Ilaahay ii diray mooyaane iyo dadka jaarkayga mooyaane. cid kale oo qaraac badan oo hayo oon dareemayo, oon lugtaydii ka dareemayo cillad badan oo qaraacnay soo saartay, daaweyn badan aanan u haysan, lacag badan oon ku iibsado. nabarka wixii kaga dhacay misigta dhinaca misigta dhiilkaygii baa dhammaaday baa layidhi. markii dhiilkaasi dhammaadayna meeshaasi biraa la geliyey, birihii baana imika igu jiro hindiya laigu soo geliyey. birahaasina waxay doonayaan imika in laga saaro haddii awood loo helayo lacag qarash aan ku tago hindiya. imikana ma haysto waxaan ku tago qarash hindiya oo lagaga soo saaro birahaas. oo lugtaydu way kala gaabatay, saasay u kala dheer tahay labadeeda lugood. intaasa walaalaha muxsiniinta waxaan ka codsanayaa qofkii wax xili kara inuu Ilaahay inagana miisaanka xasanaadka niigu daro oo isoo caawisay. 9 sanana sariirta jiifo, weli kamaan kicin, dibad umaan bixin,
magaalada ma kala garanayo meel ay kala maraso dhammaan waxaan farayaa dhalinyarada ila midka inay muuqaalkaygan aanay dhaafin oo ii fidiyaan waxay awoodaan igu soo taraan haddayna awoodinna muuqaalkayga ii sii fidiyaan oo ii gaarsiiyaan dadka kale dhammaantood waxaan nahay wiil dhalinyaro nila mid ah oo doonaya inuu shaqaysto 9 sanana sariirta la saaxiiba oo aan waxba samaysan waxaan ka codsanayaa dhalinyarada ila midka inay muuqaalkayga aanay dhaafin oo ii sii fidiyaan magacaygu waa Caasho Maxamuud Cateeye walaalaha waan idin salaamayaa ummadda Nabi Maxamed oo dhan salaan qaali aan ku salaamayaa walaalayaal waxa weeyaan anigu waxaan ahay wiilkan Mahad Maxamed Ciga hooyadii baan ahay 9 sano iyo jiifaa dhaqtarra in badan baan la marmaray haddana rajo weyn baan ka sii qabaa lugtiisaasi inuu ii sara joogsado waan jecelahay inuu qeyrkii wax la qaybsado waan jecelahay anu qoys tan yar baan ahay odayga wuu xanuunsanayaa halkaas uu jiifaa waxba ima qaban karo walaalaha baan ku noolahay ummadda Ilaahay adeejay baan ku noolay jaarkayga iyo ummadaha kale Ilaahay wuxuu ii saqraa baan ku noolahay haddana waa wiil yar oo mustaqbal baan ka sugayaa rajaan ka qaba haddana lama qof nool weeyaan isagoo 9 sano jiifay oo sariirta la saaxiiba haddana maanta waxaan ka qabaa rajo haddii Ilaahay ummadda Nabi Maxamed ii adeejiyo aad baan u jecelahay haddana inuu rajo ii yeesho oo hooyaan ahay waad iska garanaysaan hooyada ninkii garanaya iska garanaya waxa weeyaan aan cidi ima shaqayso horta Ilaahay baa ii maqan alla mooyaane aadama ima maqna xaga aadamaha marka leegaan cidna ima maqna Alla ima qodna waxaan jecelahay ummadda muxsiniinta Ilaahay meel kastuu joogan inuu Ilaahay iiga nixiyo ii adeejiyo waa weel yar oo mustaqbal leh oo maxay curdina oo soo koraya oo laxaadkiisi waay nin walba uu ka damqan karaa labadiis lugood saadarkaasaan bay u kala gaabteen haddana rajaan ka qabaa oo kama samirsani haddana kama quusni walaalahayga muxsiniinta meel kastay joogaan waxaan jeclahay in la soo caawiyo hooyo damqanaysanahay laba iyo wiil kale wuu ka weyn yahay laakiin wax camal ma hayo ciyaal yar buu haystaa isna wallaahi wuu xanuunsanayaa waa kuwa dariskaygii arkaya ila jooga way iska ogayeen xaaladiisa waxba uguma dhina xanuunkiisa markii hore faalish baa ku dhacay iminkana macaan baa haddana kusoo bowday aad baa u culustay xaaladiisu habeenkii kama seexano ilaa soo jeednaa haddana ilaahayba baan talada saaranaynaa alla baan tala saarana ugu dambeyn waxaan dirayaa waxa weeyaan horta qof bila aadan aan ahay oona farahayga waxba ku haysan wuxuu Ilaahay hayo mooyaane laakiin waxaan gacmaha ku haystaa ma jirto ummadda Ilaahay waxaan baaq dheer iyo baaq gaaban buu dirayaa in wiilka la ii soo caawiyo oo la ii gargaaro rajo buuxda ayaan ka qabaa haddii Ilaahay iigu soo dhiibo intaa kadib hadalka waxa ka daba qaatay siyaado kamid ah dhalinyaro iyagu si iskooda u caawiya Mahad isla markaana ka bixiya marka ay helaan dawooyinka uu isticmaalo iyo sidoo kale hadalka waxa ka daba qaatay mid kamid ah waalidiinta jaarka ay yihiin maanta halkan waxaanu la joognaa wiilkan yar Mahad Maxamed Cige waxaanu ahay qof xogogaal xaaladiisa xogogaal baanu ahay waayo maalintii uu jabay maalin waxay waqti cishaaya bay ahayd masaajidka ayaan ku wada tukananay jamici masaajidka ayuu ka tirsanaa wiilkan yar jaar baan dhinaca kale laahay dhinaca kale marka laga eego waalid baan ugu toosanahay muddada 9 sano ah dadka muslimiinta waa caawinayeen waa taakuleynayeen waxaan se u baahanahay wali aan laga maarmin taakuladii dadka muslimiinta ah ee walaalaha muslimiinta ah wiilkan yar wali waa u baahan yahay waayo 9 sanadood waa lala tacaalayay irbad baa lagu seexiyaa oo ku jiibsadaa waa markuu soo kaco xumada iyada lagaga jabiyaa ma haysta garab aan ahayn dadka walaalaha muxsiniinta ah waxaan markhaati idinka nahay in dhaqaale badan hore u soo gaadhay meelo badan lala soo maray laakiin weli uu garabkii muslimiinta u baahan yahay dadka muslimiintiina waa iscaawintana waa shay wanaagsan oo markaa qofka muxsinka ah ee wax la soo baxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala bedelkiisa siinaya nabigeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri anfiq yunfaq sadaqada lala baxayo qofka markaasi qiyaamaha ayaa markaasi ay ka damisaa kulaylka faraha badan leh iyo naarta ay ka damisaa ubadka ayuu Ilaahay ugu xiftiyaa marka waxaan leenahay walaalaha muxsiniinta ah wiilka muddada 9 sano ah xoogaal baan arintiisa u nahay
waa wiilkaa yar ee hooyadii ay la daalaadhacayso aan garab kale oon dadka muslimiinta aan ahayn aan haysanin aabihii oo isaguna da'a ayaa qolkan inagu xiga jeefa oo qof xanuunsanaya ah aan isaga laftiisu garab aan haysanin aan ahayn walaalaha muslimiinta ah marka waxaan leenahay walaalaha muslimiinta soo kaalmeeya waxaan leenahay baaq dheer waxaan leenahay dadkana dhageysan doona muuqaalkana sii faafiya waxaad u heli kartaana ku soo taakuleeya kiina ugu yiri ha noqdo ka sheer gareeya muuqaalkiisa codkiisaasina meel dheer gaarsiiya arrintaasina waa arrin aanu markhaati ka nahay 9 sanana aan goobjoog la nahay aan la noolnahay jaar aan la nahay xaaladiisa aan la socono magacay waa Siyaad Aadan Cali ina kan maxalli garab jooga waxa la yiraahdaa Mahad Maxamed Cige Mahad anagu waxaan isbaranay oo barashadiisa iyo ma garanaysaayay nagu barashadiisa noogu horeysay anagoo ardaya oo dhigana maxaan ku raajaa jaamacadda Camuud qaybta caafimaadka anagoo dhigan 2021 ayaa inaan walaalo nahay oo isku galaas nahay nala soo wadaagtay arrinkan Mahad oo ahaa arrin muddo soo jiitamayay 2015 laga soo bilaabo ilaa iyo muddada imika aan joogno gabadhaas ayaa nala soo wadaagtay waxay nagu tiri gabadhaasi inanka caynkaas jira waxa uu u baahan yahay kaalmo iyo ma garanaysaa dawo iyo daawo inanka meelo badan baa la soo maray saa uu sheegay alxayaad baa la geeyay Itoobiya la geeyay India la geeyay meelo badan ayaa xanuunkiisa la soo maray waxayna ka loo qabtay inaa bira la geliyo birihii la geliyay waxa ugu dambeeyay birihii India lagu soo geliyay waxa la yiri ay ku yiraahdeen dhaqaatiirkii marka ay kula taliyeen in ay sameeyaan ay soo celiyaan xilliga ay maxanaysa ay waqti u qabteen ilaa 5 sano muddo ku beegan soo celi ay ka yiraahdeen inta kadib waxay sameeyeen anagu waxaan sameeynaa ka arday ahaan inaan anagu guddi iska dhex saarno aanu soo booqano ayna Mahad guriga aan ugu nimaano kadibna aan wareysano wareysiga aan ka qaadnay inuu noqdo inuu u baahan yahay in biraha laga bedelo waxaanu geynay dhakhtarka weyn baynu geynay waxaan ka qaadnay shaybaadho badan baan ka qaadnay shaybaadhadiisii waxa kamid ahaa inaan wuxuu qaadan jiray dawooyinka loo yaqaan antibiotica oo xanuunkiisa lagu la tacaalay dawadii inay saameyn ku yeelatay beerka iyo kaliyahan ka baarnay waxaan ka qaaday halka misigta uu ka jabo maalmaha wuxuu ku lahaa xumad xooga iyo ka dareemayay garaac badan buu ku lahaa waxay dheecaan bay lahayd afka way furnayd waxaan ka qaadnay dheecaankii baynu qaadnay waxaynu geynay dhakhtarka walhad baynu geynay waxaan ku sameynay culture wax la yiraahdo xanuunkii baa la baaray xanuunkii marka la baaray dawadii ku haboonad buu dhakhtarkiina u soo qoray inta kadib waxaan sameynay ka arday ahaan anagu inaan wax isku dardano xanuunkiisa la tacaalno barihi sidii looga saari lahaa inuu isku dayno dhakhtar waxaan u tagnay dhakhtarka lafaha ayaanu inakii aanu xanuunkiisa la wadaagnay isagana waan tusno waan u geynay inta kadib waxaan u sameynay dhakhtarku wuxuu nagu la taliyay yiri inaad ka saartaan birahan ayaa macquula kadib markaad biraha ka saartaan xanuunkiisa infection xooga meesha ku sameysmay infectionka ku sameysmay wuxuu u baahan yahay in meesha laga saaro waxa looga saari karaa in birihi laga saaro in antibiotic simanti la yiraahdo lagu shubo kadibna xanuunkii oo meesha iyo infectionkii meesha ku jira laga saaro kadibna biro dib loo geliyo hadii biro u baahdo hadii sida birihi kaga maarsami karana birihi kaga maarsami karo mid waxay u baahatay kharash iyo u baahatay arrinkaasi waxaynu la wadaagnay dhakhtar kale oo Hargeysa ah isna sidoo kale wuxuu yiri sida uu nagula taliyay dhakhtarka lafaha ee Boorama Maxamed Faarax baa la yiraahdaa sida nagula taliyay kadibna waxaanu sameeynay inaynu kharashkii aynu qiimayno kharash intee lag baa ku baxanaysan waxaynu ugu qiimeeyay lacag $7,000 in laga saari karaa biraha dibna loogu celin karaa biraas waa bira qaaliya hadii dhakhtarka dabadiisa u baahdo dabada loo qaadi karaa hadii Boorama amba Hargeysa aynu ka helana xanuunkan qalliinkan waxaan ku fulin karnaa Boorama dhexdeeda amba Hargeysa dhakhtarka lafaha ku fulin karnaa intaas aynu uga tiineen waxaan leenahay dadka muslimiinta ah dadka maaragtay muxsiniinta ah dadka khayrka jecel inakaasi waa inaan walaalkeena inta waxa u dheer inakaasi xanuunka misigta ka soo gaaray iyo jabniinka waxa u dheer inuu inakii fikiray stress uu qaaday kadibna uu isagii maxaan ku dhaday xanuuno kale ay la soo dariyeen oo inakan wuxuu qaataa dawooyinka lagu seexiyo qaataa dawooyinka stresska loo qaataa xanuunkani wuxuu saameeyay maskaxdiisana saameyn buu ku yeeshay kolka waxa weeyaan waxaanu ka codsanaa dadka muxsiniinta annaga oo si nasteexa ama si naxariis ku jirto aan leenahay war walaalahayow soo caawiya inaka waxaad ku caawin kartaan ku soo caawiya
una soo duceeya ninka walaalkeena xaafadu waa iska danyar aabihii waxalaaliyo wuxuu hayo iska daayay isagiiba xanuun la soo dariyeen macaan iyo dhikarba uu leeyahay qolka nagu xigo jiifa aad iyo aad waxaan dadka ugu dardaaraya waxaan leeyahay mar kasta ku celcelinaya dhalinyarta waxaan leeyahay qof kasta oo arka clipkan inuu share gareeyo meelo dhaadheer gaarsiiyo kii wax ku tari kara $1 Allah ka dhigay inuu ku soo taro aad iyo aad baad mahadsantihiin inakaasna caawimaad iyo garab istaag buu nooga baahan yahay warbaahinta Cishqi TV Boorama.